magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socda dadaal xoog leh oo ku wajahan xal loo helo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya si loo dejiyo dhammaan xiisadaha ka dhashay arrimaha la xiriira dhacdada Niisa waayitaanka Ikraan Tahliil iyo waliba sidoo kale waraaqaha iska soo horjeeda ee ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli loo madnaa qabashada doorashooyin guud oo ka dhaca guud ahaan dalka gaar ahaanna golaha shacabka oo la doonayo in la bilaabo 15 bishan dadaalada qaybtooda ugu muhiimsan waxaa xal bilaabay guddi wasiir ah oo hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waxaana ay la kulmeen labada dhinac ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay kala hadleen sida dadaal xoog leh loogu baahan yahay in la geliyo in la dejiyo xaaladda laga gudbo ismariwaaga guddigan waxa ay xal ku guuleysteen in gabi ahaanba ay labada dhinacba u ballan qaadaan joojinta waraaqo iska soo horjeeda iyo qaadidda tallaabooyin kale oo dheeraadaba waxayna sheegeen in loo baahan yahay in la eego daruufaha siyaasadeed ee Soomaaliya xilligan ay marayso iyo kuwa ammaanka xubno ka tirsan golaha wasiiradu waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxweynaha federaalku uu ballan qaaday in kiiska Ikraan Tahliil uu noqon doono mid cadaalad mara oo cidna aysan ka soo horjeensan karin waxa uu sheegay in arrinta Niisa iyo la wareegitaankeeda ee Bashir Goobe ay tahay dhacdo ay dhinacyadu u baahan yihiin iska arkaan lana mariyo hanaanka sharciga ah isagoo sheegay in uu aqbalay warkii ra'iisul wasaaraha ee ku aadanaa shaqo joojinta Fahad Yaasin agaasimihii hore balse magacaabistu ay tahay mid isagu xaq u leeyahay guddi 7 xubnood oo ka socda golaha wasiirada ayaa la filayaa inay ka sii shaqeeyaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa iyana ku biiraya dadaalka la xiriira sidii loo dejin lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho gaar ahaan u dhaxaysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lafta garan waxa uu ka yimid dalka Turkiga qoorqoorna waxa uu ka soo kicitay magaalada Dhuusamareeb ee galmudug dadaalka ugu xoog badan ayay gelinayaan in ugu dambeyn la helo xal wada jir ah oo loo gudbo xaaladda siyaasadeed ee taagan iyo looguna durko qabashada doorashada golaha shacabka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kana mid ah musharaxiinta hadda u taagan xilka madaxtinimada oo isna dib ugu laabtay caasimadda Soomaaliya waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay dhexdhexaadinta garabyada iyo in si wada jir ah xalka looga gaaro khilaaf siyaasadeed ee hadda soo laba kacleeyay Ikraan arrinteeda waxa uu sheegay inay waajib tahay inay hesho cadaalad madax bannaan iyo daahfuran ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrinta Soomaali James Wan waxa uu tagay fiilla Soomaaliya halkaas oo uu kulan kula yeeshay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana warar madax bannaan ay sheegeen uu sheegay walaaca ay qabaan beesha caalamka ee ku wajahan arrimaha hadda soo baxay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay wakiilada caalamiga ay doonayaan dadajinta tareenka doorashada in la qabto doorashada golaha shacabka si loo helo dowlad mandate sharci haysata taana ay ku imaan karto in dhammaan darafyadu ay la yimaadaan tanaasulaad iyo ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka kulan gaar ah ayaa la xaqiijiyay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo madaxweyne Farmaajo uu dhex maray kaasoo aan faahfaahin badan laga haynin waxyaabaha labada dhinac isla soo qaadeen xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya waxay u muuqanaysay muddooyinkii ugu dambeeyay inay kaasi karaar qaadanayso gaar ahaanna xagga golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la filayay inuu qaar ka mid ah isku shaandhayn ku sameeyo tallaabadaasi madaxweynuhu waa uu ka hor yimid isagoo diiday shaqo kacayrintii wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya dhammaan dadaalada hadda socda waxay u muuqdaan in ugu dambeyn ay guuleysan doonaan marka laga hadlayo marxaladaha siyaasadeed ee xilligan ay ku sugan tahay Soomaaliya ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda